muqdisho waa astaanta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waana halbowlaha horumarka iyo dib u soo kabashada qarankeena iyo himilooyinka fog ee bulshadeena. Caasimaddu waxay saldhig u tahay dhammaan hay'adaha dawliga sida sharci dejinta, fulinta, garsoorka, talisyada ciidamada qalabka sida safaaradaha dalalka aynu saaxiibada nahay iyo diblomaasiyiin kale, waana halka looga arrimiyo Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. si magaaladu u noqoto mid haanata dhammaan dhinacyada kala duwan waa inay heshaa hogaamiye fahmi kara halka ay maanta joogto waayihii hore iyo meesha ay ku socoto caasimada diiday dib u dhac iyo kala qoqobnaanta bulshadeeda, kaasoo budhigo u noqon kara in caasimada mar kale ay hogaamiso caasimadaha kale ee gobolka iyo baraatanka horumarineed ee ka jira mandaqada geeska Afrika, taas oo iminka korsiimadeeda u muuqdo mid xawli ku socda. madaxweynaha dalkeena oo maanka ku haya ahmiyadda ay leedahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa 22 bishii Janaayo 2018 sanadkan wuxuu xilkeeda ku aaminay aqoonyahan siyaasi oo horumar kala duwan ka sameeyay hay'adihii uu soo maamulay ayna ugu dambeysay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir kuma koobnay siyaasi ku xildheer siyaasadda iyo howlaheeda, sidoo kale waa injineer aaminsan in cashuurta dalka wax ku bartay una bartay dalka si uga qayb qaato horumarka socda. waqtigan Muqdisho waa ay nasiib badan tahay waayo waxay heshay qofkii mar kale ka shaqayn lahaa xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha ay ugu horeeyaan dhismaha wadooyinka, ka fikiridda ballaarinta marinada muhiimka iyo dib u qaabeynta howlaha la xiriira dhismayaasha kala duwan. inkastoo aqoon, karti iyo awood maamul uu leeyahay gudoomiyaha, haddana waxaa jira marxalado u baahan in laga wada shaqeeyo ugu horeeyaan amniga caasimadda, kaas oo muhiim u ah xasiloonida iyo halbeega horumarka guud ahaan dalkeena, gaar ahaan magaalada iyo bulshada ku nool. waxaa jira doodo kala duwan oo ku saabsan sida loo hagaajin karo amniga caasimadda dalka, oo haddii ay Muqdisho ay hagaagto ama ay xasisho, dalka oo dhan uu xasilayo. amniga caasimadda waa furaha koowaad ee mustaqbalka dal dhisan oo soo dhaweynaya cid walba oo doonaysa maalgelinta dalkeena, kuwaas oo doonaya inaynu kala faa'iidno. dal walba waxa uu dalalka kale kaga duwan yahay hadba inta shacabkiisu ay fahansan yihiin dowladnimada, sarreynta sharciga, dareenka lahaanshaha dalkooda. guddoonka gobolka oo arrinta ka duulaya ayaa xoogga saaray dhismaha garaadka shacabka, sare u qaadidda wacyigelinta bulshada si ay u hantaan amniga caasimadda jamhuuriyadda. isbeddelka maamulka gobolka wuxuu horseeday shaqo aan lahayn waqti ay u siman yihiin howlwadeennada dowladda hoose ee Muqdisho, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda iyo dhammaan qaybaha kale ee guddoonka gobolka. muddadii uu hoggaanka cusub hayay talada gobolka waxaa isbeddel lagu sameeyey hanaanka amniga gobolka, iyada oo lagu saleeyay qorshaha amniga qaranka iyo midka xasilinta magaalooyinka dalka. waxaa isha lagu hayaa horutabinta muuqata sida amniga, hase yeeshee waxaa fulin iyo howlgelin u baahan arrimaha barakacayaasha, nidaamka ku dhaqanka sharciyada u degsan caasimadda, ballaarinta adeegyada aasaasiga sida waxbarashada, xarumaha caafimaadka, doorasho qof iyo cod oo xor ah oo ka bilaabata golo deegaan iyada oo la waafajinayo sida uu dhigayo dastuurka dalka, iyo haddii la sameeyo maqaam ay yeelato caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. howlaha socda waxaa qayb weyn ka ah arrimaha wacyigelinta dadweynaha, taas oo duqa caasimaddu uu ku darsaday ajandayaashii koowaad. waxaana ahmiyad gaara la siiyey inta uu talada gobolka hayay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Yariisow dadka baahiyaha gaarka qaba, xasilinta amniga, sugnaanta waxbarashada dadka danta yar, howlgelinta goobaha adeegyada caafimaadka iyo goobaha kale muhiimka oo ololaynta maqaam caasimaddu yeelato. waxay waddada u xaari doontaa doorasho xor ah oo qof iyo cod ah kana dhacda magaalada Muqdisho, caasimadda ummadda, taas oo noqon doonta mid taariikhi ah. kumanaan sano ka hor maamulo ayaa soo maray, hase yeeshee taariikhda ayay u geli doontaa hanaanka doorasho markii ugu horreysay lagu hanwayay in caasimadda ummaddu ay horseedo doorasho qof iyo cod ah ku dhaqanka mustaqbalka dhow. Muqdisho oo la mataan ah magaalooyinka Ankara iyo Istanbul ee dalka Turkiga waxay yeelan doontaa 3 weji oo laba ka mid ah Istanbul ay kala mataanoobi doonto magaalo ganacsi oo horumarsan iyo magaalo dalxiis. waxay sidoo kale
magaalada ankara ay ka raaci doontaa isu dhowaanshaha maqaamka habmaamuuska martisoorka soo dhoweynta hogaamiyaasha iyo caasimad hanfog leh. muwaadin walba oo ku nool caasimadda wuxuu aaminsan yahay inaysan dib u noqonayn muqdisho. hoggaanka maanta ee caasimadda wuxuu halkudhig shaqo ka dhigtay in caasimaddu ay gaari doonto doorasho lagu kalsoon yahay oo dimuqraadi ah, taa oo ay ka qayb qaadan doonaan shacabka ku nool gobolka banaadir. muwaadin qaybtaada qaado si aan u wada guulaysanno hamigeenna horumar ee aan raadinayno caasimadda muqdisho. mar kale ayay saartay dhabbadii horumarka, waxaana ileys u tahay caasimadaha kale ee intii burburka muqdisho uu ka jiray horumarka tiigsanayay.